weli laguma dhawaaqin madaxweynaha afarta sane ee soo socda uu dalkan yeelan doono iyadoo doorashadani ay soo idlaatay ku dhowaad in ka badan 24 saac ka hor ayaa weli la tirinayaa codadka waxaana jira gobollo dhowr ah oo la sugayo natiijadooda kuwaas oo ah kuwa kaliya oo wax bedeli kara sida aan ka aragno telefishinada waaweyn iyo jaraa'idadaba waxa codka hadda ku horeeya weli musharaxa Joe Biden oo ay uga dhiman tahay guusha wax aad u yar sida la sheegayo waxaa la sheegayaa haddii musharaxa madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden uu sii hayo hogaamintiisa Nevada iyo Arizona uu sugi doono 270 codadka doorashada ee looga baahan yahay qabashada xilka madaxweynenimo. Nevada iyo Arizona weli waa socotaa tirinta codadka. Arizona weli waxaa u harsan in ka badan 600 oo kun oo waraaqa oo codbixin ah oo la tirinayo. Joe Biden ayaana hogaaminaya wuxuuna heli karaa codadka doorashada oo ka dhiman guushiisa xitaa haddii uu ku guuleysan waayo gobolka loolanka adag uu ka socdo oo indhaha Mareykanku ay eegayaan ee Pennsylvania siyadu bal ka waran goorma la filayaa in natiijada kama dambaysta ay soo baxdo ilaa hadda cid sheegi kartaa ma jirto waayo waxaa jira gobollo badan oo muhiim ah oo aan weli tirintooda waraqadihii gadaal ka yimaaday aan la bilaabin oo marka hore la tirinayo codadkii shalay la dhiibtay kadibna loo gudbi karo warqadahaas loo gudbi doono warqadahaas oo tiro badan lagu sheegay oo wax weyn bedeli kara natiijadaas waxay qaadan kartaa maalmo ama in ka badan sida la sheegayo gobolada qaarkood oo aan sheegayo waxay sheegeen in 10ka bisha ay haleeli karaan inay furaanba sanduuqyada qaar codadka haddaba dib u dhaca natiijada maxaa keenay gobolada harayse isbedel ku keeni kara natiijada su'aalahan iyo kuwa kale ayaa waxaan u bandhigay Dr. Maxamuud Maxamed Culus oo aqoonyahan ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha Mareykanka sida hadda la socoto xoogaa doorashada sanadkan dhacday 2020ka waa ka duwaneed doorashooyinkii hore gaar ahaan sababtu ugu weyn ay tahay cudurkan coronavirus marka badiba dadku waxay ku codeeyeen wax la yiraahdo mailka ama waxa weeye boostada ayay geeyeen marka la geeyo boostada waxay u baahan tahay baaris badan marka arrimahaas ugu badan sidii loo xaqiijin lahay ilaa dad gaaraya 102 milyan oo qofooda maaragtay sanadkan ku codeysay xagga boostada mataqaanaa geysay marka hawshaas aad waqti qaadatay dowlad goboleedyada dowlad walba nidaamka ay wax u tiriso waa ka duwan tahay dowladda kale ma jiraan gobollo imika dhiman oo isbedel ku keeni kara natiijada ilaa imika soo baxday tiradii waxaa dhiman tahay dowladda waa jiraan waxaa dhiman dowlad goboleedka Arizona Pennsylvania waxaa ka mid ah Nevada waxaa ka mid ah Georgia North Carolina didaas wali aan lagu dhamaynin xisaabtoodii ama tirintoodii rasmiga ahayd marka Biden wuxuu hadda haystaa 253 Trumpna wuxuu haystaa 213 marka haddii uu ama guusha ka helo Arizona iyo Nevada Biden waa guuleysanayaa waayo 17 cod ayaa ka dhiman si uu ku helo 270 cod adiga waxaad degan tahay gobolka Michigan marka isbedelka uu natiijada ku keenay bal ka waran maadaama gobolkaasi uu ka mid yahay gobolada sabeeya oo aan dhinacna inta badan aan u codeyn waa sax weeye sidaad u sheegtay waxa weeye tirada dadka adigu loo tirinayo inay dimuqraadiga ay raacsan yihiin iyo tirada dadka Republicanka haddii la isu fiiriyo waa isu dhow yihiin marka doorashadii hore ee 2016kii waxaa la filayay inay ku guuleysato Hillary Clinton maadaama la filayay dimuqraadigu inay ku codbadiyaan ma dhicinin wuxuu ku guuleystay Donald Trump dad gaaraya ilaa 11 kun oo cod ayuu ku helay hadda laakiinse waxaa hadda ay raacday guushii 16 cod oo ay Michigan lahayd waxaa hadda la siiyay Biden ayaa ku guuleystay haddeertaan Congress-ka dhanka aqlabiyadda labada xisbi maxaa iska bedelaya doorashadan kadib aad horta waxa weeye doorashadan markay dhacaysay ayadoo la tixgelinayo wixii dhacay 4 sano oo madaxweynaha ahay Donald Trump waxa la filayay xisbiga dimuqraadigu inuu guulo badan xagga madaxtooyada xagga mataqaanaa aqalka Congress-ka iyo xagga Senate-ka intaba inuu guulo badan ka keeno
hase yeeshee ma aysan noqonin hadda uun sida ay tahay waxay u muuqataa kongareskuna inaysan aqlabiyaddu ay dimuqraadigu yeelan doono inkastoo tiradii hore oo dimuqraadiga u lahay wax iska dhimi doonto oo uu ku lahay aqlabiyadda laakiin weli asagaa haysanaya sanadkana awalba markii hore waxaa haystay republicanka ayagana hadda waxaa laga yaabaa wax yar uun inuu hal cod iyo uu ka yaraado aqlabiyadda laakiin ayaguna waa sidoodii ayay noqonaysaa haddii uu ku qanci waayo Trump haddii guul uu ka gaaro doorashada Biden waddo noocee ayaa u furan horta waddankan waxa weeye go'aamada iyo maamulka doorashada waxaa gacanta ku haya dowlad goboleedyada iyo dowladaha hoose ayaa u leh sharcigana dowlad goboleedyada ayaa mataqaanaa doorashada mas'uul ka ah keliya adigu ciddii horta dacwo qabtana waxa u furan waxa weeye inay maxkamadda tagto oo ay caddayso haddii wax khalad ah oo sharcigii doorashada laga galay iyo haddii mataqaanaa wax la isdhaafiyey ama waxa uu sheeganayo waxa ay tahay inuu geeyo maxkamadda marka waxa weeye maxkamadda oo markaas gobolka ayuu oo stateka ayuu la geynayaa ayadaasaa mataqaanaa go'aan ka gaaraysa marka inta badan waxyaabihii lagu murmo waxaa go'aan ka gaaraya maxkamadaha ka gaaraya weli laguma dhawaaqin madaxweynaha 4 sano ee soo socda uu dalkan yeelan doono iyadoo doorashadani ay soo idlaatay ku dhowaad in ka badan 24 saac ka hor ayaa weli la tirinayaa codadka waxaana jira gobollo dhowr ah oo la sugayo natiijadooda kuwaas oo ah kuwa kaliya oo wax bedeli kara sida aan ka aragno telefishinada waaweyn iyo jaraa'idadaba waxa codka hadda ku horeeya weli musharaxa Joe Biden oo ay uga dhiman tahay guusha wax aad u yar sida la sheegayo waxaa la sheegayaa haddii musharaxa madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden uu sii hayo hogaamintiisa Nevada iyo Arizona uu sugi doono 270 codadka doorashada ee looga baahan yahay qabashada xilka madaxweynenimo Nevada iyo Arizona weli waa socotaa tirinta codadka Arizona weli waxaa u harsan in ka badan 600 oo kun oo waraaqa oo codbixin ah oo la tirinayo Joe Biden ayaana hogaaminaya wuxuuna heli karaa codadka doorashada oo ka dhiman guushiisa xitaa haddii uu ku guuleysan waayo gobolka loolanka adag uu ka socdo oo indhaha Mareykanku ay eegayaan ee Pennsylvania siyadu bal ka waran goorma la filayaa in natiijada kama dambaysta ay soo baxdo ilaa hadda cid sheegi kartaa ma jirto waayo waxaa jira gobollo badan oo muhiim ah oo aan weli tirintooda waraqadihii gadaal ka yimaaday aan la bilaabin oo marka hore la tirinayo codadkii shalay la dhiibtay kadibna loo gudbi karo warqadahaas loo gudbi doono warqadahaas oo tiro badanna lagu sheegay oo wax weyn bedeli kara natiijadaas waxay qaadan kartaa maalmo ama in ka badan sida la sheegayo gobolada qaarkood oo aan sheegayo waxay sheegeen in 10 bisha ay haleeli